Matumizi isticmaalka huyu, hawa, yule na wale waa afarta ugu muhiimsan oo tilmaamaha ama markaa wax tilmaamayso. Huyu waxa weeye kan hal qof markaad la hadlayso. Hawana waxa weeye kuwani. Yule na waxa weeye kaas na wale na waxa weeye kuwaas. Mfano waxa dheerata camal kan waa macallin. Waxa dhaysa huyu ni mwalimu. Huyu kani ni mwalimu wa macallin. Huyu kani ni mvulana wa wiil. Okay, huyu waxa weeye kan. Hawa markan waa dad badan. Hawa ni walimu. Kuwani waa macallimiin. Hawa ni wanafunzi. Kuwani waa ardayal. Hawa waxa weeye kuwani dad badan markaad ka hadlayso. Hawa ni walimu. Kuwani waa macallimiin. Hawa ni wanafunzi. Kuwani waa ardayal. Okay, waxaad imaatay yule. Yule waxa weeye kaas markan qof ka fog oo hal ah. Yule ni mwalimu. Kaasi waa macallin. Yule kaas ni mwalimu waa macallin. Wale kuwaasi ni walimu wa macallimiin. Wale kuwaasi ni walimu wa macallimiin. So huyu waxa weeye kan hal qof markaad tilmaamayso. Hawana waxa weeye kuwan dad badan oo markaa kula joogo. Yule na waxa weeye hal qof oo ka fog laakiin markaad dheerabto kaas waa hebel camal. Yule ni mwalimu. Markay badan yihiin oo ka fog yihiin waxa dhaysa wale ni walimu. Kuwaasi waa macallimiin. Huyu waxa weeye kan, hawa kuwan, yule kaas, wale na kuwaas.